injiilka sida Yooxana uu qoray cutubka afraad kolkii Ciise ogaaday inay Farisiintu maqleen inuu yeelanayay oo baabtiisayay xer ka badan intii Yooxana inkastoo Ciise qudhuusu uusan baabtiisin laakiin xertiisu ay baabtiisayeen ayuu Yahuudiya ka tegey wuxuuna mar kale u kacay Galili oo wuxuu lahaa inuu Samaariya dhex maro haddaba wuxuu yimid magaalada Samaariya oo Shukaar la odhan jiray oo ku dhoweyd dalkii Yacquub siiyey wiilkiisii Yuusuf waxaana meesha jiray ceelkii Yacquub haddaba Ciise oo socdaal ku soo daalay wuxuu fadhiistay ceelka agtiisa saacadiina waxay ku qiyaasnayd 6 markaasaa waxa uu timid naag reer Samaariya inay biyo dhaansato kolkaasaa Ciise wuxuu ku yidhi iyada i waraabi maxaa yeelay xertiisii magaaladay ku maqnaayeen inay cunto soo iibsadaan naagtii reer Samaariya ahayd waxay haddaba ku tidhi isaga sidee baad adigoo Yahuudi ah biyo ii weydiisanaysaa anigoo naag reer Samaariya waayo dan iskuma leh Yahuudda iyo reer Samaariya Ciise waa u jawaabay oo ku yidhi iyada haddaad garanaysid hadiyadii Ilaah iyo ku yahay kan kugu leh waraabi adigu waad weydiisan lahayd isaga oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool naagtii waxay ku tidhi saydow waxaad biyo ku dhaansato ma haysatid ceelkuna uu dheer yahay haddaba xaggee baad ka helaysaa biyaha nool miyaad ka weyn tahay awoowahayagii Yacquub oo ceelkana siiyey oo isaga qudhiisu ka cabbay iyo wiilashiisii iyo xoolihiisuba Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada kii kasta oo biyahan ka cabbaa mar kale wuu haraadi doonaa laakiin ku alla kii ka cabba biyahan siin doono weligiis ma haraadi doono laakiin biyahan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeeda naagtii waxay ku tidhi saydow biyahan isii inaanan haddana haraadin oo aanan halkan iman inaan ka dhaansado markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi tag oo ninkaagii u soo yeedh oo halkan kaalay naagtii ayaa u jawaabtay oo ku tidhi nin malihi Ciise wuxuu ku yidhi run baad ku hadashay nin malihi waayo 5 nin baad lahayd kanaad haddeer haysatidna ninkaagii ma aha taas run baad ku sheegtay naagtii waxay ku tidhi sayidoo waan gartay inaad nebi tahay awoowayaashayo buurtan ayay ku caabudi jireen idinkuse waxaad tidhaahdaan Yeruusaalem waa meeshii la leeyahay in lagu caabudo markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi naagyahay rumee saacaddu waa imanaysaa markii aydnaan aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama Yeruusaalem midnaba idinku waxaad caabudaan waxaydnaan aqoon annaguse waxaanu caabudnaa waxaanu naqaan waayo badbaadintu waxay ka timaadaa Yahuudda laakiin saacaddii baa imanaysa waana joogtaa iminkadan markii caabudayaasha runtaahi ay aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta waayo aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale Ilaah waa ruux kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta naagtii waxay ku tidhi waa ogahay masiixu inuu imanayo kan Kristos la yiraahdo oo markuu yimaado wax walba ayuu noo sheegi doonaa markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi anigoo kula hadlaya ayaa isaga isla markii waxaa timid xertiisii wayna la yaabeen markay arkeen inuu naag la hadlayo weliba ninna ma odhan maxaad doonaysaa amase maxaad ula hadlaysaa iyada sidaa aawadeed naagtii ayaa ashuunkeedii ka tagtay oo magaaladay u baxday oo waxay ku tidhi dadkii kaalaya oo arka ninkii ii sheegay wax walba oo aan sameeyey miyaanu kani ahayn masiixa markaasay magaaladii ka soo baxeen wayna u imanayeen isagii kolkaasay xertiisii baryeen iyagoo leh macallimow xun laakiin wuxuu iyagii ku yidhi anigu waxaan haystaa cunto aan cuno oo aydnaan ogeyn haddaba xertiisii waxay isku yidhaahdeen ma loo keenay wuxuu cuno Ciise wuxuu ku yidhi cuntadaydu waa inaan sameeyo doonistii kii soo diray oo aan shuqulkiisa dhammeeyo miyaydnaan odhanin waxaa weli hadhay 4 bilood oo markaas ayaa beerta la goynayaa bal eega waxaan idin leeyahay indhihiina kor u qaada oo daya beeraha inay u cad yihiin beergoyska kii gooyaa mushahaaru helaa
wuxuuna midho u ururiyaa nolosha weligeeda inay kii beera iyo kii gooyaba isla farxaan hadalku waa ku runkan mid baa beera mid kalena waa gooya waxaan idiin diray inaad gooysaan wixii aydnaan ku hawshoon kuwo kale baa hawshooday hawshoodiina waad gasheen waxaa magaaladaas ka rumaystay isaga dad badan oo reer samaariya hadalkii naagta aawadiis markay marag furtay oo ku tidhi wuxuu ii sheegay wax walba oo aan sameeyey sidaa darteed markii dadka reer samaariya u yimaadeen isaga way baryeen inuu la joogo wuxuuna halkaas joogay 2 maalmood markaasaa kuwo kale oo badan rumaysteen hadalkiisii aawadiis oo waxay naagtii ku yidhaahdeen iminka waxaanu u rumaysanaynaa ma aha hadalkaaga aawadiis maxaa yeelay qudhayadu waanu maqalay waanuna naqaan inkanu runtii yahay badbaadiyaha dunida 2 maalmood dabadeed meeshaas ayuu ka tegey oo Galili aaday oo Ciise ayaa ka marag kacay inaan nebi waddankiisa murwad ku lahayn haddaba markuu Galili yimid dadkii Galili way soo dhoweeyeen iyagoo arkay wuxuu ku sameeyey Yeruusaalem oo dhan waqtigii iidda waayo iyaguna iiddii way tageen haddaba mar kale ayuu yimid Kaana tii Galili oo ahayd meeshuu biyihii khamriga kaga dhigay meeshaasna waxaa joogay sirkaal wiilkiisii ku bukay Kafarnaum isagu markuu maqlay inuu Ciise Yahuudiya ka yimid oo Galili gaaray ayuu u tegey oo ka baryay inuu u yimaado oo wiilkiisii bogsiiyo waayo dhimashuu ku dhowaa haddaba Ciise wuxuu ku yidhi haddaanad calaamooyin iyo yaabab arkin marnaba ma rumaysan doontaan sirkaalkii wuxuu ku yidhi sayidow kaalay intaan wiilkaygu dhiman Ciise wuxuu ku yidhi soco wiilkaagii waa nool yahay markaasaa ninkii rumaystay hadalkii Ciise ku yidhi wuuna socday intuu socday ayaa addoommadiisii ka hor yimaadeen iyagoo leh wiilkaagii waa nool yahay markaasuu wuxuu iyagii weydiiyey saacadduu ladnaaday waxay ku yidhaahdeen shalayto saacaddii 7 ayaa qandhadii daysay markaasaa aabbuhu gartay inay saacaddaas ahayd saacaddii Ciise ku yidhi wiilkaagii waa nool yahay markaasaa isagii qudhiisu rumaystay iyo kuwii gurigiisa joogay oo dhan haddaba tanu waa calaamaddii labaad oo Ciise sameeyey markuu Yahuudiya ka tegey oo Galili yimid